Adobe Premiere Pro waa program aad powerful ah, aad u fiican, professional ah, laakiin mararka qaar waxaad dareemay inaa xadidan tahay. Hadaa u baahatid motion graphics inaad ku samaysid, waxaad u baahnaan doontaa program kale, After Effects. Kaliya muu baahnanaysid inaad soo furtide, waa program kale cusub oo hadda aad baranaysid. Waana ku qasbantahay inaad baratid si aad motion graphics u samaysid. Markay noqoto codadka, wuxuu leeyahay xoogaa basic tools ah baryahan dambe oo AI lagu soo daray markii laga reebo, laakiin more advanced markaa rabtid waxaa haddana aadi doontaa program kale, Adobe Audition. intaas kuma eko waxyaabaha kaliya uu ku fiican yahay Premiere Pro waxa waaye dadkii yaqaan After Effects, Adobe Audition, Adobe Illustrator iyo Photoshop aad integrating u sameynayaan. Fileska si toos ah u save gareysid meeshaas oo aadi doonaa. Marka waxaad isweydiinaysaa macne taladeed maxay noqon lahayd inaad programkee baratid. Haddii aad hore u bilowday Premiere Pro waxa ku dhihi lahaa iska sii wada ilaa aad familiar ku noqotid basic editing toolska. haddii aad u baahatid After Effects inaad baratid asagana gooni waqti kala geli. Laakiin markay ay noqoto program intaas dhan isku leh horta fudud. haddii noqoto DaVinci Resolve waa vision oo leeyahay oo After Effects camal ah, laakiin aad oo more advanced yahay waa adag yahay. waa tijaabiyaan xitaa ku guuldareystay. I'm sorry. Programadan hadda CapCut marka waxa ku dhihi lahaa CapCut ka bilaab. CapCut baryahan dambe waxaa lagu soo daray more advanced features. Marka hore asigoo ahaa user friendly fudud, haddana shirkadda ByteDance ee TikTok waxay isku daydaa inay mar walba horumariso. Programku marka waxay ka dhigtay doq koowaad dad badan oo editors ah iyo doq koowaad u noqday. In muuqaalka high quality ah ka save green kartid, inuu leeyahay effects badan, titles badan oo templates ah oo programyada kale kaga fiican yahay, iyo more AI toolska. Update-ka joogtada ah ee ku sameynayaan ayaa programka mar walba wuxuu ka sii dhigayaa mid top ah. Dooqa kale waxaa weliba aad u fiican Wondershare Filmora. Wondershare Filmora waa free, aad wuxuu ku siinayaa features casri ah AI toolska. Xitaa baryahan waxay ku soo dareen AI story waxa la lahayo. Clipyo automatic ah asagoo ku saaraya adiga kaliya u qoraysid bas. Waxaa jira dooqyo badan oo kala duwan. DaVinci Resolve jiro haddii aad rabtid inaad isku heshid audio iyo video. inkastoo graphics-kiisan uu adag yahay, laakiin templates la helayo. Marka intaas ayuu noo egahay muuqaalkeena. Insha Allah muuqaalka xiga ayaan noo balan ah. Bye.